kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixinta xanaa ah oo aynu ku eegi doono ciyaartii weyneed ee Mr. Erdogan. Warbixinta qaybteeda koowaad waxaan ku eegi doonaa tayeynta askarta, xoojinta sirdoonka iyo awoodda cusub ee dowladda Turkiga. Tani waa qaybtii ugu horreysay ee taxanayaal eegaya hamiga siyaasadeed ee madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan laga soo bilaabo isku ballaarinta cusub ee Afrika iyo dhinacyada Yurub ilaa xiriirka qallafsan ee uu la leeyahay Midowga Yurub. Fagaaraha xurriyadda Baku ee bishii la soo dhaafay, kumanaan askari oo ka socda askarta Azari oo wata koofiyadaha dhogorta leh iyo jaakadaha tidcan ayaa u dabaaldegay guushii dalkooda ee gobolka Caucasus iyo ninkii suurageliyey ee ah madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. Waxaa lagu casuumay kulan sharafeed. Hogaamiyaha Turkiga waxa uu eegay dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee uu keenay Baku markii ay dagaalamayeen iyo qaabka casriga ahayd ee ay raadaarada Ruushka lagu soo farsameeyey ugu dhunteen, taasi oo suuragelisay in Armenia dib looga qabsado Nagorno-Karabakh. Rajab oo boos muhiim ah laga siiyey munaasabadda ayaa waxa uu yidhi isaga oo ay hareerihiisu ka taagnaayeen calanka Turkiga iyo kan Azari, maanta waa maalin guul iyo sharaf inoo ah dhammaanteen. Go'aanka Mr. Erdogan ee ah inuu awood buuxda iyo taageero aan xal lahayn siiyo Azerbaijan, xitaa iyadoo awoodaha reer galbeedku ay ku baaqayaan xabad joojin, ayaa loo fasiri karaa muujinta ugu dambeysay ee mowqifkiisa siyaasadeed ee arrimaha dibadda ee sii kordhaya, oo lagu garto hadalla aan tanaasul lahayn iyo in uu diyaar u yahay adeegsiga awood adag. Shantii sano ee lasoo dhaafay, Mr. Erdogan waxa uu bilaabay duulaanno militari oo uu ku qaaday Suuriya iyo waqooyiga Ciraaq. Sidoo kale waxa uu ismaandhaafyo xagga badda ahi la galay Griiga. Laakiin weli ma cadda in Mr. Erdogan uu diyaar u yahay ama uu awood u leeyahay inuu tanaasul ka sameeyo arrimaha dhibaatada ku ah xiriirka Turkiga iyo Midowga Yurub, Maraykanka iyo Bariga Dhexe, ama luqadaha cusub ee heshiisiintu ay dhowaan u weecin doonto culayska cusub. Waxaa jira waxyaabo yaryar oo uu Turkigu sameeyo oo loo qaadan karo in ay yihiin laan saytuun ah, laakiin ma jiraan wax muhiim ah, ayuu yidhi diblomaasi reer Yurub ah. Haddii aad fiiriso arrimahan aan aasaaska u diidannahay, labada dhinacba waxa ay leeyihiin aragtida ah in kubaddu ay taal garoonka kan kale, marka aad ayay u adag tahay in meel kasta loo aado. Madaxweynaha Turkiga oo 66 jir ah oo xisbigiisu xukunka la wareegay sanadkii 2002, waxa uu in badan isku dayay inuu isku muujiyo inuu sameeyo aragtida ninkii taariikhyahanka ahaa ee Sonor Kobati, kaasi oo ay ereyadiisu ahaayeen Turkiga ka dhig mar labaad Turkigii weynaa ee gudaha iyo dibadda. Laakiin isku day afgembi oo dhiig ku daatay kaasoo ay ku kaceen kooxo militari oo khiyaali ah sanadkii 2016 ayaa calaamadeeyey dilaac ku yimid macaamilkii Turkiga ee adduunka intiisa kale. Falaqeeyaasha ayaa leh waxa ay ka dhigtay Mr. Erdogan xitaa mid shaki badan ka qaba dhanka galbeedka, waxayna ku riixday isagoo u dhow Vladimir Putin iyo Ruushka. Waxa ay ku qasabtay inuu samaysto xulufo siyaasadeed oo cusub oo gudaha ah, wuxuuna suurtageliyey inuu la wareego maamul aan horey loo arag. Khudbad uu jeediyey 3 bilood kadib afgembigii dhicisoobay, Mr. Erdogan waxa uu sheegay in dalku uusan sugi doonin dhibaatooyinka ama kuwa ka soo horjeeda in ay garaacaan albaabka Turkiga. Mr. Erdogan mararka qaar waxa uu iska dhigaa qof u dooda diinta isaga oo iska dhigaya hogaamiyaha dunida muslimka ah, laakiin sidoo kale waxa uu si aad ah doorka u saaraa sawiridda iyo luqadda wadaninimada. Diblomaasiyiinta iyo falaqeeyaasha ayaa ka digaya istiraatiijiyaddu ay leedahay halistan weyn, labadaba xagga dhaqaalaha iyo xiriirka ay la leedahay quwadaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah. Inkastoo 10 sano ka hor mabda'a hagaya siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga uu ahaa dhibaato deriska ah, falaqeeyaasha Turkigu ayaa hadda waxa ay ku kaftamayaan inuu Turkigu cusubi aysan deriskiisu dhibaato lahayn. Siyaasadda arrimaha dibadda ee Mr. Erdogan waxa ay ku tilmaameen kuwa Neo-Ottoman, iyagoo tixraacaya boqortooyadii ku baahday koonfurta Yurub, galbeedka Aasiya iyo waqooyiga Afrika kana horreysay jamhuuriyaddan casriga ah. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegaya in dalkooda uu si fudud u ilaalinayo danahooda. Mid ka mid ah ayaa yidhi markii Faransiisku uu soo farageliyo waa un Faransiis, cidna uguma yeerto Napoleonic. Isku dagii afgembi ee 2016 iyo nadiifintii ka dambeysay waxay u ogolaadeen in Mr. Erdogan uu si weyn ula wareego ciidamada qalabka sida. Waxa uu sidoo kale samaystay isbahaysi doorasho oo lala yeesho xisbiga MHP ee wadaniyiinta xagjirka ah, isaga oo qaatay aragtida saxda ah ee hawkish amniga qaranka, gaar ahaan gooni ugoosadka Kurdiyiinta. Waxa ay leeyihiin fikrad la mid ah taasi oo ah in Turkigu uu sare u kaco, sidoo kalena waa in ay kordhisaa awooddeeda, ayuu yidhi Evan Belta oo ah brofesor ku xeel dheer xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda Ozgian ee magaalada Istanbul.
isla mar ahaantaana uu guuritaankii 2018 ee nidaamka madaxweyne waxa uu daciifiyey doorka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka. Dhaqan ahaan guriga Mendereska oo uu arkay jihaynta dabiiciga ah ee Turkiga ee ku wajahan galbeedka. Safarada dibadda ee Mr. Erdogan marar dhif ah ayaa la arkaa iyadoo uusan ag joogin madaxa sirdoonka Hakan Fidan iyo wasiirka difaaca Hulusi Akar. Mr. Erdogan oo faleeqayaasha intooda badani ay rumaysan yihiin in uu doonayo inuu xukunka sii hayo inta ugu macquulsan, waxa uu isticmaalay siyaasadda arrimaha dibadda dano siyaasadeed oo gudaha ah isagoo aaday ilaa iyo inuu isbarbar dhigo dowladda Jarmalka iyo Nazi, isla mar ahaantaana uu ku tilmaamo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron inuu raadsado daaweynta dhanka maskaxda ah. Socdaalkii Mr. Erdogan ee ahaa inuu Turkiga ka dhigo quwad goboleed oo ay ka muuqato ballaarinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Turkiga ee Bariga Dhexe, Afrika iyo Latin America bartamihii sanadihii 2000, iyada oo loo marayo ganacsiga iyo gargaarka sida dhaqsiyaha leh, ayaa noqday mid cakiran. Rajadii waddanku ka qabay ku biirista Midowga Yurub ayaa meesha ka baxday iyadoo ay jirto kalsooni darro iyo eedeymo ku saabsan caqiido xumo labada dhinac ah. Qorshihii lagu dhisi lahaa xiriir adag oo lala yeesho dalalka deriska la ah ee Carabta ayaa dib u dhaci ku yimid, iyadoo ay socdeen kacdoomo dadweyne oo ka dhacay gobolka oo dhan. Dagaalkii Syria waxa uu saameeyey dalka Turkiga oo qaab argagixiso ah iyo imaantin malaayiin qaxooti ah. Howlgalladii militari ee Turkiga ee Suuriya iyo Liibiya, taageeradii ay u fidisay Ikhwaanul Muslimiinta waxa ay Ankara ka hor keentay xulafo Carbeed oo xoog badan oo ay kala hogaaminayaan isutaga Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya. Hadda Yurub waxa ay quus ka taagan tahay hoos u dhaca ku yimid xuquuqda aadanaha ee Turkiga. Washington ayaa ku jahawareersan go'aanka Mr. Erdogan ee ah nidaamka difaaca cirka ee S-400 oo uu ka soo iibsaday Ruushka, kaasi oo bishii hore kiciyay cunaqabataynta Maraykanka oo in muddo dheer ahba la sugayay. Xiriirka Turkiga uu la leeyahay lamaanayaasha cusub sidoo kale ma ahan mid toos ah. Xiriirka uu la leeyahay Mr. Putin waa mid adag oo inta badan kala daadsan, sida lagu cadeeyay markii 34 askari oo Turki ah lagu dilay Suuriya sanadkii hore, weerar uu Maraykanku ku eedeeyay Moscow. Hase yeeshee, Mr. Erdogan waxa uu gaaray xoogaha guul ah. Taageerada Turkiga waxa ay rogtay xiriirkii dagaalkii sokeeye ee Liibiya iyo Nagorno-Karabakh. Taageerada Ankara ee Azerbaijan waxa ay soo bandhigtay xadka saameynta Ruushka ee Caucasus. Siyaasadda qalaasaha leh ayaa baajisay maalgashi shisheeye oo aad loogu baahnaa. Marka lagu daro walwalka laga qabo maareynta dhaqaalaha ee Mr. Erdogan, waxa ay culays ku noqotay lacagta Turkiga. Shirkadda baabuurta sameysa ee Jarmalka Volkswagen ayaa hakad gelisay howlaheeda iyadoo gabi ahaanba joojisay qorshe lagu dhisi lahaa warshad cusub kadib qayldhaan ka dhalatay weerarkii Turkiga uu ku qaaday xoogagga Kurdiyiinta Suuriya sanadkii 2019. Siman Ulgun oo ah diblomaasi hore oo Turki ah isla markaana ah gudoomiyaha xarunta cilmi baarista ee Istanbul Etman ayaa yiri qaabka aan u xukumi lahaa guusha siyaasadda arrimaha dibadda waa in caawisaa Turkiga inay si wanaagsan u ilaaliso danaheeda qaran iyo in ay caawiso Turkiga in ay hubiso dhaqaale waara. Koritaanka shuruudahaasi ma ahan guul weyn. Madaxweynaha Turkiga ayaa muddo dheer ahaa nin mustaqbal doon ah oo raba in uu sameeyo xulashooyin adag haddii loo baahdo si uu u sii hayo awoodda. Laakiin falaqeeyaasha qaar ayaa tuhunsan in Mr. Erdogan uusan rabin inuu sameeyo tanaasul loo baahan yahay si loo hagaajiyo xiriirka xulafada NATO, gaar ahaan Maraykanka. Waxaan u malaynayaa in hadafka ah in la helo siyaasad dibadda ah oo madax bannaan xoog leh inta lagu guda jiro NATO ay sii jiri doonto, ayuu yiri Ali Moskofis oo ah sarkaal horey ugu tirsanaa jiray waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka, haddana ku sugan xarunta horumarinta Maraykanka oo ah hay-ad fikir sameysa. Wuxuuna intaasi ku daray laga yaabay inuu ka xanaaqi doono hadalladan, laakiin u malayn maayo inuu ka xanaaqi doono aragtideeda. Waxaa intaasi inooga eg qaybtii koowaad ee warbixintii xasaasiga ahayd ee ciwaankeedu ahaa ciyaartii weyneed ee Erdogan. Tan iyo aynu kulmi doono qaybta xigta, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.